waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, xidhiidhnimadu waxay lahayd wax dheef aan marka hore lagu talagelin asii gadaal ka yimaada. taasna intaan isku dayo inaan tusaaleeyo aan idhaahdo dhowaan ka hor guurka qoyska dhexdiisa ah Soomaalidu ma ay aqoon. hadduu dhici jirayna dhif buu ahaayo sida carabta ilmo adeerada laxmiga ah isuma ay dhisi jirin. barbaar waliba markuu guur hawaysto waxaa lagula talin jiray reere ay dhul iyo abtirsiba ku kala fog yihiin inuu u gayaan doonto. taas markuu yeelana waxaa u dhalan jiray baa la oran jiray rag wada cirkayeera oo waaga dambe bulshada dhexdeeda ka tilmaanaan jiray. inkastoo xiriirka xididka ka dhexayn jiray uu dabeecad gooni ah lahaa oo in la dhowro loo badnaa, haddana marmar buu dadka xididka ahay isqoomi jiray. mid gardaranba kolkol baa intay arrintoodu saacdo ay geedka guurtida tegi jirtay, maantaa kadibna isu rogi jirtay wax dadka degaanku uu ku sheekaysto. ciddii ay taasi la yaab ku noqotona waxaa la xusuusin jiray mahmaahdii ahayd laba la arko carab iyo ilko ayaa isugu dhow iyana way isqaniinaan. qardoofooyinka xubnaha xididka dhex maraa waa kala heer, waana kala culus yihiinoo waa kala foolxun yihiin. taasna waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii Soomaaliyeed ee oran jiray nin iyo saydigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday, sodogii hadday gaadho saxariir rag baan mooday, sodohdii hadday gaadhana hala kala socdaan mooday. macnaheedu wuxuu yahay nin iyo saydigiis doodi dhex martay la yaab badan ma laha, maxaa yeelay hadalkoodu marnaba ma qaawanaado. waa sarbeeb iyo dulmar. jiritaanka reerka lagu xidhiidayna wax ma yeesho. sidaa darteed waa wax la garan karo loona dul qaadan karo. haddii isla arrintaasi ay sodoga kol dambe u gudubtose waa silic iyo saxariir. waxaase ugu sii daran labadaas muggay inta soo dhaafto ay sodohda soo gaadho saygeedana ay la safato. waa goortaas abwaankii murtidaas laga baqlay goortii uu saadaaliyey in la joogo dhammaadka xididtinimadii labada qoys, isaga oo leh ha dhowaata hase dheeraatee qoys ay sodohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa waa sacab tima ka soo baxeen. si kastaba ha ahaatee khilaafka xididku wuxuu marmar gaari jiray in la isu gabiyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerka iyada dhalay ay maanso ku wada hadlaan. maansada ujeeddadaas lihi waa laba qaybood, badankeeduna cabasho, is-eedaysi iyo kala sheegasho ayay daaran tahay. qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo inta wixii la isu ahaa la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn. tira ahaanse ma aha wax maansada Soomaalida aad ugu badan, waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta markii hore si wacan u xididay gadaalkii siyaasadda iyo hogaaminta bulshada ku coloobay. qaybta labaadise waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaha ay ragga xididka ahi isu tabiyo. midda noocaana markay isu tirinayaanna waxay ka maagi jireen erey kasta oo aflagaadaa labada dhinacna colaad gundheer ka dhex abuuri kara. sidaa darteed bay intay kari karaan waxay tixahaas ka ilaalin jireen afxumada iyo berri ka maalin wixii gabyaaga tiriyey bar madow ku noqon kara. waayeelka miyiga ku soo barbaaray ee maantaba noole siduu og yahay, Soomaalidu markay meel u sodcaalayso sahay ma qaadan jirin. waxay isku hadlayn jireen dhulka ay sii mari doonaan reeraha degan, kuwaasoo uu dhaqanku dusha ka saarayay socotada ku soo hoyatay inay sooraan labada aqoolood ee ay la joogaanna ay si wacan u hayaan. taasna waxaa gadaalkii ka abuurmay xeer idil oo ku saabsan hiddaha martisoorka. waxaa hiddahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhuunta, ama si ay uga gudbaan inta xanuun aan jirin isku rida heblaay raar culus igu deg afadiisa ku yidhaahda. sokeeye
iyo shisheeye kay ahaadaanba wuxuu dhaqanka soomaalidu fari jiray martida in loo kaco cad iyo caano gasiinka kolba loo heli karo in loo huro laab iyo weji furan lagula sheekaysto waa berigiina si wanaagsan loo ambabixiyo ninkii aan sidaas yeelin muudad iyo qaduuc bay u yiqiineen diihaal kasta oo ay qabaanna qoyskiisa kuma ay leexan jirin guud ahaan iyada oo hidduhu sidaas ahaa ayay ugu sii darayd martidu markay xididna noqoto oo haweenayda qoys kale iyo iyagu ay xigto dhow yihiin markaasoo kalena waa marka kashkash iyo isxilqaan siyaada ah ninka qaba laga rabo waa marka ay tahay isku mar inuu iska riido xilka martinimada iyo midka xididtinimada ka saaran labadaba haddiise ay sidaa noqon weydo oo martida xididkana ahi ay saluugto sida loo martigeliyey si hufan bay uga gelgelan jirtay kolkolna cid gabay taqaani haddii ay ku jirto waxbaa laga oran jiray kaftanba ha loo ekaysiiye sheekadan aan kollow idinku jalbeebin doonaa berigii ay dhacday waxaa la deganaagay barwaaqo ah oo gu'ya dayr samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen waa xilliga caanadiidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaanoo caanaha iyo dhiiraha ay ku jiraan isha iyo afkaba laga duwo waa marka cadadiska loo jaftoomo ee ruux waliba uu jeclaado hilib ama badar inuu cuno sidaasna uu caanaha kaga nasto iyada oo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa niman socota ah wuxuu gabalku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeen oo haweenayda lagu qabo ay isxigeen si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey fiidkii markay xoolihii u soo guryo galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay aagaamo caana ah iyo hurubgaaladii ay kaga durduuran lahaayeen shawseedigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filayeen waxay ka filayeen inuu u loogi doono oo inta wanshilis loo qaro caanaha ka sokow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doonaan taasi ma dhicin dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hundhuraya ayay dhinaca dhulka dhigeen waagu kolkuu u bariyey oo ay ambabaxayeen ayaa haweenayda reerka leh mid ay ilma adeer labaad ahaayeen ninkii u seediga ahaa laba meelis oo gabaya ku tuuray laba meelis oo uu kaga cabanayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la-aantii ay ku seexdeen wuxuu yidhi xididkaa wan baa loo qalaa laga waraabshaaye haddaad ciir la soo waantireen waa cadayeelkiin markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigana loo ahaa isla goobtii ku jawaabay labadii meelis ee loo tiriyeyna ka celiyey laba uu eedii isaga reebay bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay wuxuu yidhi caanaha wanaag lehe haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weer xidhan tihiin waa cadayeelkiin sida kuwaas hore niman iyaguna socoto ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn laba gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto waatuu gabyaagu lahaa marti xiisehee waa habeen reerka loo xuro sida xunsho inaad yuururtaan waa xil iyo ceeb hase ahaatee qoladani intay taa iska halmaameen ayay golihii dhowr cisho ka hor loo wanaajiyey intay mindhaa macaansadeen isaga nagaadeen goor haddaba ay reerkii naftu qabatay ayay isweydiiyeen war maxaynu ka yeelnaa nimankan meesha inoo dhacadiida mid baa yidhi aynu gabadhooda u sheegno iyadu hala hadashee mid kalea yidhi aynu u gabayno labadaas talaba markii ceeb loo arkay ayaa raggii soo jeediyey lagu diiday ugu dambaystiina gabyaan malaha beri calan joogi jiray xoogaa carabi ahna ka soo bowsaday ayaa yidhi tan oo kale gabay la-aan dhici maysee aniga ii daaya aniga ayaa u tilinaya tix aynu ku ceelbeedlo isla markaasna aan xaal inagu raacin waxaan isugu barxayaa af soomaali iyo af carbeed aana garan karin oo maxaad odhan lahayd ayay weydiiyeen markaas buu yidhi waxaan ku odhan dadka kale mar buu yacrifaa ya'kulkii maraye
iyaguna halkayga arqudaan kama yaquumaane alladii yastaxyii maafis oo maba yasiiraane dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo